Soomaali ka wada dhigay yani maanta dayda iyo dad la leeyahay dadkoodii uma naxaya waxaan leenahay wadadaan loo soo nixinayna markay yaraayeen way qofku tarbiyadu qaatuun buu hadhow sii gudbiya haduu markuu yariye uu yahay qof loo naxariistay oo si fiican loo kobciyay isna hadhow dad baahan markuu arko uu ka naxaya laakiin markuu yaraa hadii la sii dhangadeen jiray waliba isna wuxuu helaa hadhow haduu xabad la helo waa inuu ku dhuftaa ma mashkila waayo isba wala tumayay inuu isna qaartuma dhibaato weyn ma walidaalك baa nabigu wuxuu leeyahay qofka aan naxariisan ilaahayna uma naxariisto antu saala idinka siiya dhaqanka Soomaaliyeed mesela waxa jira Soomaalidu dad ay geel jira u yaqaaniin geel jiraha Soomaalidu waxay ku sifeeyaan inuu col yahay ama inuu cadow yahay cadownimada geel jira waxa la gaarsiiyaa waxaan maqlay Soomaalidu maama ay dumarka u nisbeeyeen oo yiraahdaan waxay yiraahdaan geel jiriyana ma aad garanayn bay ku macaanto kale haday jirto maama hadii hadaanay jirinba waxa ay sheegaysaa mas'alada tani geel jiruhu inuu qof aan laga naxaynin uu yahay maxay ku dhacdo geel jira dhaqankooda waxa kamid ah ka ugu yar ayay qaraan inanka yar 8 jirka ama 9 jirka geel lagu daray la yiraahdo la socdo ayaa waxa loo dhibaa gudinta waxa loo dhibaa hadhuuk waxa loo dhibaa maqaarka waxay sitaan oo dhankaas ay dusha ka saaraan waa kii ugu yaraa maalin oo dhan waxa soo xambaarsan geelina uu la jooga oo daba socda waliba waxa laga yaabaa hadii ay caruur kale geel jirayaal kale is helaan inta dhangad loo dhiibo in la yiraahdo ultama way ultamaan ul isla dhaca waxa la leeyahay ninkan adayga la baraya labadii yar yaraa ulba isla dhacaya kii adigu aad wadatay hadii uu shalaga badiyo uu ooyo caawad hadana dilaysa marka ay isugu timaadaan xirigeesh ayaa markale la dilaya la leeyahay maxaad ragga isaga celin weyd ilmaha caynka loo tarbiyeeyay markuu weynaado muxuu yeelayaa marka maxaa laga sugayaa isna tarbiyadu qaatay waxa weeyaan in aan la isu nixin